السلام عليكم daawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba waxa aad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxa aan uga hadli doonaa warbixin cajiib ah oo aan ku eegi doono nidaamka waxbarasho ee dalka Finland. Dalka Finland waxa uu dhacaa waqooyiga qaaradda Yurub, waxa uuna xad la wadaagaa dalalka Sweden, Norway iyo Ruushka. Dalkan ayaa loo aqoonsan yahay in uu yahay dalka leh nidaamka waxbarasho ee ugu wanaagsan adduunka. Haddaba waxaan idinla wadaagayaa 10 arrimood oo cajiib ah oo uu kaga duwan yahay waxbarashada dalalka kale ee caalamka. Ugu horreyn daawade, haddii aad ku cusub tahay kanalka, iminkaba subscribe garay, sidoo kale in aad muuqaalka like saartaa muhiim ayay inoo tahay. Mahadsanid. Waxbarashada dalka Finland gebi ahaanba waa lacag la'aan, oo ardayga ayaa qaadanaya mushaar lacageed bil ah. Macalinka doonaya in uu wax baro ardayda dugsiga hoose waxa looga baahan yahay in uu haysto shahaadada heerka labaad ee jaamacadda ama master degree-ga. Maamulaha iskuulka waxa soo doorta hoggaanka arrimaha ardayda. Arday walba oo fasalka koowaad ah waxa la siinayaa kombiyuutar, mana laga isticmaalo dalkan buug iyo wax la mid ah. Fasal kasta waxa laga doonayaa in uusan ka badnaan 20 arday, si ardayda iyo macalinku ay isku helaan waqti ku filan. Tirada xiisadaha ay ardayda qaataan maalinkii waa 5 xiisadood. Mushaarka uu qaato macalinka waxa uu ka badan yahay kan uu qaato madaxweynaha dalka. Meelaha laga raaco gawaarida iyo basaska waxaad ku arkaysaa kuraas midab gaar ah leh, kuwaas oo loogu talagalay macallimiinta. Macallin kasta waxa uu haystaa kaar ama bidaaqo aqoonsi ah, kaas oo uu ku iibsan karo wax walba uu doonayo qiimo dhimis 50% ah. Kaliya waxa uu bixinayaa kala bar qiimaha shayga, waana maamuus iyo qadarin loo hayo macallimiinta. Arday walba waxa uu xaq u leeyahay 3 waqti oo cunto ah iyo mushaar lacageed bil ah oo gaaraya $50. Dalkan gebi ahaanba lagama yaqaano waxa la yiraahdo imtixaan. kaliya macalinku waxa uu qiimeynayaa ardayga, waxa uu siinayaa darajada uu mudan yahay. Haddaba daawade, qodobkee ayaa ku soo jiitay? Qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. Mahadsanid.